xisbiga awoodda shacabka ayaa maanta kusoo biiriyay axsaabta siyaasadeed ee ka jira Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka ayaa maanta shahaado siiyay dhowr xisbi, waxaana si gaar ah u soo jiitay xisbi uu hogaaminayo duqii hore ee Muqdisho Thaabit Cabdi Maxamed, kaasi oo ay sidoo kale ku jiraan siyaasiyiin badan oo xilal muhiim ah uga soo qabtay dalka. xisbiga awoodda shacabka waxaa sidoo kale ku jira siyaasiyiin hore, aqoon-yahano, ganacsato iyo dad badan oo qiimo ku leh bulshada dhexdeeda. Thaabit Cabdi Maxamed ayaa la sheegay in uu arrimaha xisbigan ku mashquulsanaa tan iyo bishii Janaayo 2018. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Cilmi Xaaji Ereg, oo haddana ah gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee xisbiga awoodda shacabka, ayaa maanta ka gudoomay guddiga doorashooyinka madaxa bannaan shahaadada ku-meel gaarka ah. Si kooban ayuu warbaahinta ula hadlay, waxaana uu yidhi: waxaan u mahad celinayaa guddiga doorashooyinka qaranka sida wacan ee hawsha u hagaajiyeen. Waxaan rajo badan ka qabnaa in loolanka siyaasadeed ee Soomaaliya uu noqdo mid xisbiya ku tartamaan, adeeg shacabna halkaa laga hirgeliyo. Wax badan oo ku saabsan xisbiga awoodda shacabka waxaad ogaan doontaan dhammaantiin xafladda ugu horeysa ee xisbigu yeesho, ayuu yidhi gudoomiye Xaaji Ereg oo ah gudoomiyaha ku-meel gaarka ah ee xisbiga awoodda shacabka. Dad badan ayaa aaminsan in xisbigan heli doono rabitaan bulsho oo xoog leh, iyada oo laga cabir qaadanayo adeegyadii uu Thaabit Cabdi Maxamed u qabtay muddadii uu xilka hayay dadka ku nool gobolka Banaadir. Siyaasiyiinta Soomaalida ayaa intooda badan isha ku haya in laga guuro hanaanka qabiilka ee ku salaysan 4.5, iyada oo loo gudbayo in lagu tartamo nidaam xisbiyo badan. Beesha caalamka ayaa sidoo kale xoog iyo xoolaba ku bixinaysa in Soomaaliya saameynteeda siyaasadeed laga saaro nidaamka qabiilka wax ku qaybsiga ee 4.5.